gudoomiyaha maamulka ee gobolka Bay Cabdi Aadan Hoosow oo maanta dib ugu soo laabtay xarunta magaalada Baydhabo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo waxaana soo dhaweyntiisu ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka kan degmada iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militariga ee ku sugan gobolkani Bay gudoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale dadweynaha aad u fara badan oo ka tirsan reer Baydhabo kula hadlay xarunta maamulka ee gobolka Bay ugu horeeyna halkaasi gudoomiyuhu waxa su'aal ku weydiisay gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baydhabo Xaawo Sokor waxaana weydiisay gudoomiyaha gobolku lanka siyaasad kala waddan isan taalo shughul ku lahayd may go'aan kan ay inuu madax banaani uu ku noolan sida dadka dariskan Soomaalidu niidmide way falaanayaan in la qaado ra'yigu wadan ra'yigu gadiisan adan la kooyn waana Baydhabo ka dhawaad markale mar saddexaad mar lama way kala ha dhawaaw meelay dadka roogan ada gudoomiye gobolka haytiya kooyti way hakiisan ilaahay walaha kasima kore iyo oo nabad oo afkor liskay jaran dad siyaasad gooni wada war hele laakiin haanasna wada hadal walwiinba awal biraayay ku dawo koro kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Cismaan Macallin Cabdi oo isna hadal gaaban ka jeediyay ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolka isagoo sheegay in gobolku haatan uu yahay mid aad u wanaagsan amniga horumarka waxaana uu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha maamulka ee gobolka Cabdi Aadan Hoosow gudoomiyihii maamulka gobolka Bay mudane Cabdi Aadan Hoosow oo ku maqnaa safar caafimaad iyo mid shaqo isugu jira ayaa maanta ilaahay uu suurageliyay inuu dalka ama gobolka uu ilaahay dib ugu soo noqdo mudane gudoomiye waxaan ku leenahay soo dhawow mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlaya magacii maamulka gobolka ama guud ahaan bulshada gobolka anoo codkooda ku hadlayo si farxad leh oo niyad wanaagsan ku soo dhawow ayaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad intaa kadib Cabdi Aadan Hoosow oo isaguna ka hadlay howlihii uu kaga maqnaa gobolka iyo waxyaalaha waatan ku soo kordhiyay isagoo sheegay ama ka jawaabay su'aal ku aadaneed bal fikirkiisa ku aadan maamul sameynta lixda gobol ee koonfur galbeed ee Soomaaliya ya jaran oo dadkun liin haano hadhimadeeno nuunaadan ka saanay langornay jaran laakiin taariikhda lamba meelo ku galay oo baalan diidna way rajaayay taariikhdan uneenu ku galna lankasto ku tirsan gobolku inni meeli faylahayti ku gal tantilis ay rajari gabartiis guurmile tileeray oo basuweelay gabartiis guurmile tileeray jari marka insha Allah way rajaayna gabrogan inni guurlaan an ka deena oo way rajaayna meel fayl oo nadiifa dadkan natownaada doonaan inay taariikhda ku galnay rajaayaan marka eedan maasintay assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh inta kadib ayaa gudoomiyaha maamulka gobolka iyo mas'uuliyiin kale oo la socday waxay gaareen hoolka weyn ee shirarka ee ay ku sugnaayeen malaaqyada haatan ku howlan maamul sameynta koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaana gudoomiyaha maamulku gacan qaaday odayaashaasi qaar kamid ah isagoo ugu hambaliyay hawsha wanaagsan ee hayaan dib u soo laabashada gudoomiyaha maamulka gobolka ee maanta sida weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo ayay waxay ku soo beegmaysaa xilli guud ahaan gobolku haatan ka socdo shirweyne markaasi maamul loogu sameynayo koonfur galbeed ee Soomaaliya Xuseen Urgeysay TV-ga Royal magaalada Baydhabo